yaa lagu sheekeen bitcoin waa hal waxay maraysaa 60 iyo intaasoo kun ma gadan kartid bitcoin waxa gadan kartaa $100 ayaa iibsan kartaa $10 ayaa iibsan kartaa waxa helaysaa satoshi wax la dhaho oo ah chachapka bitcoin satoshigaas haddii lacag badan haddii bitcoin de milyan ama 2 milyan ama 10 milyan gaarto satoshigaasna lacag badan ku gaaraya marka dhinacaas ka fikra yaan la aadin coin kale oo aan macno badan lahayn ama qof dad buga badan oo tuga soo saarteen ama meel badan ba gaarin karin aniga si ila tahay RFK Junior oo kamid ah rag u tartamaya madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan oo ahna wiil adeer u yahay madaxweynihii hore ee la dili jiray wadanka Mareykanka John F Kennedy wuxuu sheegay shalay shirka bitcoin ka dhex sheegay 204,000 oo bitcoin hadda dawladda Mareykanka gacanta ku hayso inuu ku wareejin doono 204,000 bangiga dhexe ee dawladda Mareykanka ee Fed kala dhaho wuxuu kale uu sheegay inuu maalin walba ku amri doono wasaaradda maaliyadda ama treasury-ga inay gadaan 500 oo xabo bitcoin dawladda Mareykanka u gadaan oo ay keediyaan ilaa ay ka gaarayaan 4 milyan oo coin oo bitcoin intay urursanayaan waxa marka meesha kaaga muuqata inay bilaabatay waxa la dhaho FOMO ama fear of missing oo ah in dawladihii ay hadda bilaabayaan si tartiiba inay tartankii bitcoin lagu urursanayay ama lagu gadanayay ama lagu kala qolob kale kaga badnaan lahayd inay bilaaban doonto waxa xaqiiqa hadii ay ku dhaqaaqo ama haduu guuleysto umaleeyay inuu guuleysanayo laakiin chance uma badan inuu guuleysanayo Donald Trump ay u egtahay Donald Trump oo waliba asaguna maanta khudbaynayo shirka khudbaynayo waa shirka bitcoin buu maanta ka khudbaynaya sida la rajeynayo inuu haduu ku dhawaaqo asaguna uu yiraahdo waxaan sameeynaya reserve oo waxa bitcoin ayaan u gadaya dawladda Mareykanka oo meel u dhigay haduu dhaho warkaas uu dhamaaday madaxweynaha haduu noqdo China bilaabaysa India way bilaabaysa iyo Russia iyo tartanka halkaas ay ka bilaabanaya wadamada Carabtu waa sida aniga la tahay Ilaahay yiraahdo laakiin si wax u muuqdaan adigu iska soo qaatay qof saaxiibka ama challenge idinka dhaxeeyo haduu wax gato waxaas oo rajo fiican potential leh adiguna khasab tartan ba kula jirtay khasab waa gadanaysa marka saas adduunka human behavior saas u shaqeeyaan ama dawladuhu saas u shaqeeyaan marka dawladda Soomaaliya dadka Soomaaliya si ma muddo in looga jiifo umaleeyay dawladda Soomaaliya hadda lacag badan ku tuhmaamayo ay tartan ku gasho oo hadda wax ku gadato iyadaaba lacag la marka waxa laakiin kula talinayaa inay wax uun yar haday doontaba wax hal bitcoin oo kaleeto hasi meel hasi dhigteen dawladda El Salvador ayaa mar hore bilowday in maalin walba gadato madaxweynaha ku dhawaaqay dhowr sano ka hor waana dawladdii koowaad oo si aad u aaminsan bitcoin wadamada Carabta oo lacagta leh oo lacagta oilka haysta oo haday ayaguna soo galaan waxaan aaminsanahay inuu qiimo sii kacayo waxaan oo dhan isku ceyrsanayna waa 20 milyan ku talagal 20 milyan oo coin oo kaliya way aan la kordhin karin 20 milyan ugu yaraan 4 milyan sida lagu qiyaasayo waagi hore oo bay iska luntay oo lacag laanta ahayd intay dadku soo qataan ama ay soo mining ku sameystaan ayay lumin jirtay marka waxa soo haray 20 hada 4 ka jirtid 17 kaas milyan marka 17 milyan hada u qaybisid lacagta adduunka ay haystaan adduunweynaha dhan hadii la isku daro waxay noqonaysaa halkii xab waxay gaari kartaa 2 milyan ama 100 milyan bay gaari kartaa si lagu qiyaasay ama 10 milyan 20 milyan marka habda waxay ku xiran tahay sida loo soo gato hadii tartanka Donald Trump maanta ku dhawaaqo uu yiraahdo bitcoin reserve ayaan uga dhigayaa lacagta Mareykanka u dhaho ama qayb baan gadanayaa u dhaho ku dhawaaqo markuu dawladdu ku guuleysto oo dawladdu ku guuleysto dawladaha kalena iska fadhiyeeyaan aniga say ila tahay tartanka ama si hoose bay u gadanayaan sida hadda dahabka dhacdo kale dadda wadamada BRICS kala dhaho dahabka ay aad u gadanayaan ayaa leeyahay si looga maarmo dollarkii ay ugu dependent ku ahaayeen maadaama raashka markii hore dollarka laga saaray marka dawlad kale u ogolaan mayso inay wax laga kala badsadaan bitcoin waa assetka ugu adag waa 20 milyan oo aan la kordhin karin oo dahabka ka qiimo badan si aan ila muuqato marka dadka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed dadka lacagta haysta iyo dadka caadigeena ahba inta gadan kartid yaa lagu sheekeen bitcoin waa hal waxay maraysaa 60 iyo intaasoo kun ma gadan kartid bitcoin waxa gadan kartaa $100 ayaa iibsan kartaa $10 ayaa iibsan kartaa waxa helaysaa satoshi wax la dhaho oo ah chachapka bitcoin satoshigaas hadii lacag badan hadii bitcoin de milyan ama 2 milyan ama 10 milyan gaarto satoshigaasna lacag badan ku gaaraya marka dhinacaas ka fikra yaan la aadin coin kale oo aan macno badan lahayn ama qof dad buga badan oo tuga soo saarteen ama meel badan ba gaarin karin aniga si ila tahay marka aad ayaa u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh